ilaalinta qalbiyada dadka waa mid aad muhiim u ah waxaynu nahay dad ku dhex nool bulsho kala duwan waxaa naga mid ah mid furfuran oo farxaan ah mid kale ah xirxirane dadku ay dhahaan waa kali socod dadka oo dhan waxay nagu leeyihiin inaynu kula dhaqanno dabeecad wanaagsan dabeecadaas oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka yiri وخالق الناس بخلق حسن dadka kula dhaqan dabeecad wanaagsan markana loo fiiriyo bulsho ahaan waxaynu nahay bulsho kaftan badan asxaabta dhalinyarada ah ayaana u badan dhanka iyo kaftanka laakiin kaftanada qaarkood dadka qalbiyadooda waxay ugu dhacaan sida gantaalka oo kale waa suurtagal inaad dhahdo hadal kula fudud agtaada dhanka walaalkaana kaga xanuun badan gantaal oo weliba ay hurdadii ladii weydo caawa oo dhan ay xusuusanayso dacarta hadaladii kaftanka ahaa ee aad adigu ku tiri iyadoo ay kula fududayd qalbiyadeenu hadday xanuunsato ama ay dhaawacanto way adag tahay sida aan u kabi lahayn inaynu ilaalino qalbiyada dadka waa mas-uuliyad ina saaran af iyo adinba waa inaynu ka geysanaa sidii aynu qalbiyada ugu abuuri lahayn naxariis iyo galgacal iyo walaaltinimo sidaasi la mid ahna waxaa jiro hadal aynu ku dhahno qof taas oo farxad daraaddeed u seexan waayo sababtuna ay tahay inaad ku tiri hadal wanaagsan waa hadal aad ku soo jeedatay oo uu kugu jeclaaday laga yaabaa inaad iska tiri oo aadan u qasdin waxaa maqlaysaa mararka qaar saaxiib wanaagsan oo aad u jecel saaxiibadiisa oo u dadaalaya oo u bixinaya maalkiisa si uu u garab qabto saaxiibkiisa baahan oo u murugoonaya laakiin nasiib darro isagoo maskiinkan loo dadaalayo oo loo murugoonayo ayuu qalbiga saaxiibkiisa ama saaxiibteed uu jabinayaa oo aysan dhowraynin ma oga in la ilaaliyo dareemihiisa ma la socdo xaqiiqadu waxa ay tahay qaaliyow saaxiib iyo qaaliyay walaal aynu dhowrno qalbiyada walaalaheen qalbiyadu waa sida muraayad oo kale hadday jabtana kabideeda adkaanayso maxaa ka wanaagsan inaad qalbiyada dadka ku beerto ubax qurxoon mirahooduna ay markaa noqdaan kuwa aad u macaan oo ay ku degayaan qalbiyada dariska wanaagu waxa uu ku jiraa inaad kula kulanto walaalka waji furfuran nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu la hadlayay mid ka mid ah saxaabadiisa waxaana uu ku yiri waraa xaqirin wanaaga walowba aad kula kulantid walaalka waji furfuran markaa ayuu walaalka wajigaaga ka akhrisanayaa inaad xushmad u hayso walaal ku dhaha qalbiyada dadka hadallo wanaagsan oo miyaydan maqal قولك ربك جل وعلا وقولوا للناس حسنا oo u dhaha dadka wax wanaagsan ilaali qalbiyada dadka maxaa yeelay aragan waxay awood u leeyihiin inaysan arag waxa aysan doonayn laakiin qalbiyadeenu kama xiran karno waxa aynu doonaynin ee way dhex jibaaxayaan wax kasta oo lagu yiraahdo qalbiyada halaysu sifeeyo walaalayaal qalbigu waa shay jilicsan mana xamili karo hadallada liita ee dhaha kelimadaha wanaagsan waxa uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam والكلمة الطيبة صدقة كلمة wanaagsan waa sadaqo walaalayaal ha loo hibeeyo qalbiyada kelmadaha wanaagsan yaa la dhaawicin qalbiyada oo ha u horseedin inaad disho qalbi nool cidii soo gasha qalbiyadiina soo dhaweeya laakiin kii ka baxaana ku jeer ha la soo dhaweeyo waa Caamir Cabdi Maxamed oo idin leh aynu dhowrno qalbiyada walaalaheen